alxamdulilah maantana waa maanta la joogo kulley waan wala ognahay dadka dhan way ogyihiin waxaana aad iigu qaaliyo aad maanta ugu faraxsanahay intaanu ableenin soo meel kula jiro 2001 aan shaqo ka bilaabay magaalada muqdisho aan ka shaqeeyay shaqadeeda ku soo biiray korn heer miyi baan jiray alxamdulilah caana gadaayo 10 sano 7 sanana waxaan gadaayo dukaan caadi ah inta dad iyo dharka ahaynaa gadi jir alxamdulilah anigoona aan hadda ku qanacsanay laakiin ganacsiga caadiga aan iska wado laakiin riyoodayda ahaa jirtay inaan meel dheer gaaro bulshada aan ka soo dhex muuqdo laakiin hadda maanta aan meel aan u raadshan aan hadda meel aan ku ogeynin alxamdulilah ablintayda oo maanta ila fadhido Faadimo Cali Ismaan ay ugu soo casuuntay kabriga anigoona aqoon aan u lahaynin marka fursadda baa Ilaahay iigu soo dhiibay Ilaahay weyn waa ku mahadina alxamdulilah aniga go'aan ka qaaday qof shaqaysataan naqd alxamdulilah maantana waxaan ahay aad baa u faraxsanahay ilaa lacag aan waligeey qaadanaa ka qaaday kabriga aad iigu qurux badan waligeeyna aan shaqaynin aanan hamin laakiin hadafkayga ahay inaan lacag ka qaado alxamdulilah lacagtaas oo hadala amaal marin ah iyadoo faa'iidooyin badan ay uu leeyahay kabaniga xagga caafimaadka iyo xagga aqoonta iyo xagga dalxiiska aan ka soo dalay alxamdulilah oo gudaha ah hadala aan maanta ka haystaa lacag amaal marin oo $10,000 ah anigoo darajadayda tahay star still shaqadayda inaan hor u sii wado hadda waa ku sii jeeysanahay ilaa tiyana speed aan ka gaaro iyo darajooyin ugu dambeeyay alxamdulilah oo guriga lagu qaato ama diyaaradda ama diyaar u ahay dad badan oo noloshooda iyo caafimaadkoodana aan bedelan hadduu qoyskayga yahay iyo hadduu familka yahay iyo haddii xagga muslimka amba igu le bulshada dhaxdooda aan ku leeyahay haddana waa u taaganahay inaan maanta meesha aan joogo iyo meel ka sii dheer gaaro wixii walbo oo calashaan riyadayda ah iyo hadafkaygana aan si saacidsho noloshaydana aamada hadda aan ka bedelo iyo mid ka sii daran aan maanta u bedelan taaganahay alxamdulilah ma sha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. magacayga waxaa la yiraahdaa Faadimo Cali Ismaan. alxamdulilah Tianis biriga waxa aan ku hadlaayay kala ma aqaano aad iyo aad u faraxsanahay waxaan qaban jiray dukaan ayaa lahaa markii hore waxaan ka shaqeey jiray Sacuudi Carabiya qadaamada ahay hadaa ka imaadanay dukaan lahaa oo raashin la gado raashin aan iibi jiray gabar i keentay khayr Allah siiyo mar waliba waan aga dacooyaa markaas tii Faadimo way shaqo jeceshahay maxaa shaqo martaa asayr waan rabaa in shaqo waan rabaa aan dhahay shaqada alxamdulilah caafimaadka ka helay aad u xanuunsanaay 100% neefta igu cishoomi jirtay caafimaadka marka anigoo naqaska igu cishoomayo oo maartaya hadaa jiifta aan jiifa karin laba barkin hadaa jiifta aan hurdi karin ayaan joogi jiray inoo saas ah ayaa shaqay jiray marka xanuunkayga waxay tiri xanuunna waa lagu daaweeyaa hantina waa laga helaa hantidana ha ii dambeysay caafimaadka ay soo u yaala asaa la yiri waa lagu daawooba hal ay geeyanda waa ii keentay caafimaadkii daawada maalinkii $160 ayaan qaato oo daawo ah ayaan cunay alxamdulilah leena qas badan ay ugu xirnaa shaqadiina hore ka bilaabay aad iyo aad aan ku guuleystay maanta darajada Bros Lion darajo la yiraahdo Starbuter ayaan ku jiraa mana dareemi karo $15,000 wiligay allahay ma aan arkin aad iyo aad aan maartayaan ugu faraxsanahay lacagtan inaan helo maanta wiligay allahayna ma helin lacagtan maadaama Sacuudi ka shaqeey jiro dukaan ka shaqeey jiro meel ka shaqeey $1,000 ka badan gacanteyda ma qabanin ugu horeen magacayga horta waa Nuur Macalin Maxamed ku magac dheer Nuur Cafe kabaniga Tianis ka hor waxaan ahay sida nolosha caadiga qof walba oo la dagaalama ugu horeen horta ma helin fursad waxbarasho dhameystiran Nuur ahaana mana helin skills ama xirfadan maanta ku shaqeysan karo wax ku soo saarto mana helin maanta fursad aad dukaan ku maalgashto oo dakhli inta si la gaarayo ma helin fursadda kaliya maalintaas haysto waxay ahayd inaan noqdo qof xoogiisa maala ama muruqiisa maala waxaan ahaa shaqadan ka hor qof xamaaliya oo aliyam kubriya ana noloshaas adag ku nool maanta aanan ku fikireenin wax ka baxsan wax dabka ku shida lahayn ama aliyamka sida nolosha caadiga ya qeyr Allah si qof aan aad u jecelahay oo wakiilkayga oo markasta aan u duceeyo cali aadan guuleed fursadan igu soo martiqaaday kabariga Tianis waxaan ku soo biiray taariikhda markii 2015 bisha shanaad shanteedii aan iska diiwaan galiyay ilaa 2016 shaqadii xoog baan waday faa'iidooyin dhowr baan ka helay kabariga markaa ku soo biiray kadib ay ugu horeysay aqoonta shalay aan fursad u waayay inaan ka helo caafimaad inaan ka helo inaan dalxiis wadanka dibadiisa aan tago oo aan ugu ku fikirayno maanta xamaaliya inaan diyaarad raaci karo fursadda dalxiis ay siisay shirkadda waxaan kaloo ka helay inaan maanta respect ama xushmad dad badan in badan dadka isla shaqeyn jireen aan ka heli jirin ama dadka la noolaay inaan ka helay Tianis
waxaan kaloo ka helay ugu weyn inaan ka helo gaari 15 kun oo dollar oo in badan aan ku taameeyay aan u shaqeynayay inta geedi socodka gaariga aan u socdana aan dadka iga Tianis ka baxsan ee lagu soo dhaweynin ee caqabado badan aan kala kulmi jiray oo u horeyso nuuru ma gaari kartid dad ka aqoon badan aan meesha ku daalay horta jira waayay waxba lagama helo waa been aniga markaa hadafkayga ii muuqatay inaan gaari karo ka xaqiijiyay maanta waxaan leeyahay dadka shalay dhihi jiray waxba ma qabsan kartid ma gaari kartid waxaan u baaqayaa anigu ka faa'iideysanayo fursadda maanta qof walba oo shay isku daya oo dadaalkiisa u dulqaatay inuu gaari karo sidaan maanta aan u gaari ka dhigan tahay waxaan ku faraxsanaa maanta inaan gaari 15 kun oo dollar ku guuleysto really runtii dareenkayga maanta ma soo koobi karo waa lacagta ugu badneed ebed aan gacanteeda ku qabto 15 kun oo dollar waa maasanta